waxaan halkan ka salaamayaa ogaaska salaadiinta cuqaasha madax dhaqameedka kale waxgaradka iyo waayeelka halkan fadhiya iyo intii ku maamuusan mas'uuliyad xil waxaan u qadimayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku xusayaa gobolkan qaangaadhnimada siyaasadeed qaangaadhnimada nabadda qaangaadhnimada aqoonta gobolkan uu leeyahay waana ku majeertaa markan meelaha kala joogo waa gobol runtii wanaag badan leh waxaanan maanta u imi halkan inaan xilgudashadayda aan gogashaa nabadeed gobolka isku waraysanno aanu isla eegno xaaladaha iyo duruufta dalka ka jirta aanu isla eegno isku xidhka iyo wadaagga xogtu wuxuu meesha ka saaraa shakiga marka dadku wada sheekaystaan ee wada hadlaan ee wixii xukuumaddu haysay aanu shacabka la wadaagno shacabkuna tabashadiisa xukuumadda la wadaago waxay meesha ka saaraysaa kala shakiga iyo kala qaybsanaanta iyo in shaydaanku bulshada kala fogeeyo waxaanay keenaysaa midnimo taanu socdaa maanta waa tahay inaynu iswaraysanno isdhegaysanno si isku xidhnaanteenna iyo isu soo dhowaanshaheenu intan uga badnaado daawadaasaan doonayaa inaynu maanta isla wadaagno waxaanu xagga xukuumad ahaan anagu rabnaa shacab midaysan oo nabad iyo somalilan ku midaysan oo aan qaybsanayn midnimo iyo walaalnimona lama helaayo haddaan cadaaladi jirin iyo waxqaybsi waa in cadaaladi jirtaa oo waxqaybsi jiraa oo is-ogaansho jiraan oo waxa yaallaana wax wada muuqda ahaataano aanay jirin wax cid gaara u qarsoon waa sida keliya lagu gaari karo wanaag somalilan qaran la aqoonsanyay maaha laakiin wanaagga shacabkiisa iyo dowladnimada iyo nabaddu waa wax dadku dhistay oo gacmahooda ay ku keensadeen oo cid waliba ay leedahay wanaaggeeda leedahay boorama si gaara waa asaaskii dowladnimada maanta iyo nabaddaba labadaba runtii waana gobol ka midho dhaliyo qaangaadhnimada aan xagga hore ku xusay waxa keenay nabadda iyo wanaagga ay dhistay weli gacanta ku hayso haddii nabadda la waayo wanaag dhammaantiibaa goobta ka baxaya aqoon-yahanada wax ku barta gobolkan waxaa saldhig u ah nabadda iyo haldoorka dhaqan iyo siyaasiba leh ee ku hagay shacabkooda nabadda islaamka waxaynu la wadaagnaa jidhka iyo damqashada dad islaama waynu sidoo kale walaalaheenna soomaaliyana nabad iyo wanaag baynu u rajaynaynaa in ilaahay culayska ka qaado nabad ay helaan oo ay degaan waayo wanaag kasta oo ay leeyihiin baynu la wadaagnaa xumo kastay leeyihiinna wayna soo gaadhaya marka haddaynu nahay shacabka reer somalilan wanaag baynu u rajaynaynaa cunsuriyad iyo xumaan inooguma jirto waxaan saqiraynaa ama xusayaa somalilan 22 sannadood ay jirtay waxay tusaale u noqotay geeska oo dhan waxaanay tusaale u noqotay meel kasta oo qof Soomaaliyeed joogto ma jirto laambad nabada iyo dawladnimo oo baxaysa Somaliland mooyee Somaliland waa guri aan anigu isleeyahay in la sii adkeeyo mooyee meel looga guuri karaa ma jirto waa dareenkayga laba wax baa la tijaabiyay labadaba guuldarra laga keenay gaarna kuma yahay shacabka reer Boorama Soomaali weyn rag baa u saantagay beeshayda u badnayd waa ku dagaalanayba beeshayda u badnayd waa ku dagaalanay wallahi guul laga ma keenin raggii tagay ma keenin raggii maqnaana ma keenin waxaan aad u xasuustaa nin odayo ragga waliba reerka aan Xuseen ka soo jeeda oo dhowr iyo 20 sannadood ku maqnaa ayaan anoo wasiiro u tagay waxaan ku yiri horta mid waa ka xunnahay midna waa ku faraxsan mid waa ka xumood odayaasheedii baa taho talaad nagala maqnayd 20 sannadood midna waa ku faraxsan oo kuraastii ka tagteen aniga iyo ragga dhalinyarada iskaga fadhiyo taasina waa noo fursad wuxuu igu yiri waxa dhisateen iyo waxa gaadheen anigu Soomaali weyn niman ku dhimanaya ayuu yiri
laakiin maanta waxa dhisateen idin oran maayo cid wax ku darsada bedelana idin oran maayo waanan idinka mahadnaqayaa waxa jira garowshiyo Somaliland guriga la yiraaho in waxay doonto lala goobo oo ictiraaf lagu sugo mooyee meel looga guuraa ma jiro godka Soomaali weyn ku dambeeyay gaaray guul daray kala soo noqdeen maragna waa u tii marag bay noqon Soomaali waa kala tagtay nin waliba goofkiisii buu tashaday aynu guriga Somaliland u tashano ka laga soo guuray nin kale kuma tartami karo nimaanu dhashoon baa ku tartami kara wixii ay bixiyeen waxay u daliiltaa iyagoo Soomaali sheeganaya wixii garow xaga ka xiga wixii ka sokeeyaba hal wasiir baa la siiyay wasiirkuna waa inaan marka iyaguna uma diyaar aha midnimada inaguna dawladnimadeena aan adkaysano yaan waqtiina kaga lun talabaad waxa weeye waa oraa yar mar soo duulo ibriiq la maxaa la yiraahdaa ibriiq state qaar baa tijaabiyay bariya halkana marmar bay dhawaaqo ka soo baxaa aqli baa la doonaya niman dhalinyaro baan xalay la sheekaysan dadkan iska dhac kara waxay yiraahdeen ruuxaasi aqli kuma samaysnee waa cadho marmar kacda cadhadana tuunka keeno yana waan saaraynaayo waa taan halkan u joognaa inaynu yana tuunkeeda aynu saaro shacabka reer Boolama talada reer Somaliland ma guri u dhiman baa jira ilaa ka sareeyo ilaa ka hooseeya ma jiro xilalka u sareeyo iyo ka hooseeya midaan reer Boolama qabani ma jiro marka dhiil walba waxa ku jira haddaan shacabka reer Boolama yeeleen way ogyiin dhiil walba waxa ku jira waa Somaliland wax badan uma kordhin haddaan odaygii reer Boolama maanta oday kala bedelay waxba horumar ballaadan inaguma kormin laantu waa taashalay ka odayahaydeen waxaan qirayaa in wax qabad baa kordhay shacabkuna uu qirayaa wax qabadku meel kale kama idhan oo qumbayno ma burqane intii yareed baanu hagaajino wada geli halkan kala geli marka tuunku Boorama horta haydin ka baxo wax badan Soomaalida inteeda kale waxba la wadaagtaan tuunkaasi horta markay xagga yara qabato horta tuunka iska saaro waa mid idin gaare ka labaadna waxa weeye waa in yaro jirto calan yaro meel yaala hadda Soomaali anaga doonayno qoladayada u dagaal badnayn waanu soo weynay laakiin calan meel ma naan dhigan calankaana inaga tuura waxba tari maayo inaga tuura waxaan doonaynaa runtii fagaarayaasha sidan oo kala dadkeenu waa dad wanaagsan tuunku burcaan imika ka yimi beela laftigoodu way seegeeyaan suldaan dhawlo la seegeeyayo mala qolada kale leedahay habraha hatta xagga idinka jira hamoodina cid waliba way cabanaysa burcaan isugu geeyay beela badan oo wada taga qolada kale markan gaar loo kulmay way yare eegaysay eegid baa jirta dabeedna fagaaraan isugu geeyo waxaan sheekaysta waxaan doonayaa si tuunku u baxo inaan koox dhalinyaro iyo wax garada ay balbarigana nala soo eegaan waxa jira waxba ma jiraan runtii waxa ma jiraan haddii wax qabad iyo wanaag dhacayna goboladu uu ka qabsoomaabay ayuu gobolkani ka mid yahay sababtana waxa keenta aqoonyahanka badan raganimada badan isku duubnida badan ayaa keenta runtii wax badan baana ka qabsoomay socdaalkayga saldhigiisu maadaama ay nabad tahay oo aan wax dhibi jirin waa iska inaynu bal sidaas oo kale madal ugu kaftano oo tuunada jira aynu bulshadeena aynu ka saaro si aynu noqono shacab walaalo ah oo isu furan oo dooda oo inta la isu qarinayo marka marfashiyada la fadhiyo la isleeyay aynu madal iska nidhaano anna waxaan inta meelaha ka nidhaano ayuun baan madashan idinka oranaya anna in la yiraaho intii xukuumadda la faraayo iyo intii shacabka la faraayo in la gudbiyo ayaan doonayaa si aynu tuunka aynu uga saaro tuunkuna wuxuu keenaa tafaraaruq iyo kala tag waxaanaynu doonaynaa maynaan gaadhin halkaynu doonaynay inaynu midnimo iyo walaalnimo ku gaadhno halkaynu doonayno insha Allah bismillaahi baari haddii fadhigani furdaamintiisii hore aniga layga eegayo waxoogaa ay hadhay fadhiyadan sultaan badinaya waan badinayaa fadhiyadan badinaya waan joogaa magaalada
insha allah maamul hadday tahay salaadiinta hadday tahay dhaqanka hadday tahay runtii waxa maanta sharaf ii ah anoo cimaamad weysita inaan ugaaska ag fadhiyo sharaf bay tahay oo aan aad bay sharaf igu tahay ama aan gobolkaba ku sugno waayeelkiisa iyo waxgaradkiisii la joogo waanu badsan doonaa salaadiinay kulamada in gaara iyo in guudba waynu yeelan doonaa insha allah si gabagabadeenu u noqoto isfahan iyo wanaag inuu jiro anna wixii xukuumadda iyo dacalkeeda iyo dee loo eegayo waxaan ku khasbanahay inaan shacabkii warbixin ka siiyo oo laysla eego aad baa u mahadsantihiin soo dhowayntii dadaalkii aad ka geysateen 18 May waxaa laydiin qaray inaad gobolkii ugu wacdaraa badnaa ahaydeen aad baa laydinku qaray anigu waxaan joogay burco intaanan burco ka soo bixin oo aanan daawan TV-ga ayaa laysoo weydiiyo layidhi wasiir ma la socotaa waxa awdal ka dhacay ee ka socda ama boorama aad baan ugu mahadnaqayaa isku duubnida iyo wanaagga muujiseen taana laydiin aamusi maayo waxyaabaha kalena in laydiin aamusan maahe waa in intoo miiska la dhigo la yidhaahaa war halkan waa tuhunteen halkanna waxbaa ku jira inoo qaybiya waa sidaa waa in si furfuran loo yidhaahaa waxaa ii sharafa inuu inoo soo gunaanado oo inoo soo gabagabeeyo ugaaska aqoon horaanu isu leenahay oo classmate baanu ahayn waan iska xignaa dadka inuu inoo soo gabagabeeyo inoogu duceeyo midnimo Soomaalilaannimo walaalnimo iyo in ilaahay naga saaro waxyaabaha aynu maanta tabanayno waayo wax waliba gacanta ilaahay bay ku jiraan ku soo dhawoogaas qada sharaf maanta inoo ku sameeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa